halkani waa magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga waana magaalada labaad ee ugu weyn dalka Sacuudiga waxaana ku nool qiyaastii dad lagu qiyaasay 5 milyan oo qof magaalada Jeddah ayaa sidoo kale waxay tahay xarunta ganacsiga ee dalka Sacuudiga magaalada Jeddah ayaa mid marin u ah malaayiinta qof ee sanad kasta u yimaada dalka Sacuudiga si ay u gutaan waajibaadka xajka iyo umrada ee magaalooyinka barakaysan ee Makka iyo Madiina Jeddah ayaa magaalo si weyn u horumaraysa isla markaana markaad marayso gudaha magaalada waxaad dareemaysaa koboc dhaqaale oo aad u weyn iyo kororka dhismaha casriga ah oo ah mid si xawli ah u socda waxyaabaha sida weyn soo jiitay intii aan joogay magaalada Jeddah ayaa waxa kamid ah in koonaha magaalada aad ka helayso caana geel lagu diyaarinayo isla goobta markaad tagto iyadoo arintaasi runtii igu noqotay mid la yaab leh ugu dambeyn waxaan booqnay goobta ay ku aasan tahay hooyadii bini aadamka ee Xaawa halkaas oo ay yimaadaan boqolaal dad kuwaas oo u badan dalxiisayaal ka kala yimi daafaha caalamka dalka Sacuudiga ayaa waxa uu ka mid yahay 20 dal ee ugu qanisan guud ahaan dunida iyadoo la filayo in dalka Sacuudigu uu guud ahaan sameeyo horumar aad u ballaaran sanadka 2030 ku xidhno Ayuub Show lana socon muuqaal cusub.